habeenkii haweeney walba habeenkeeda xaqeeda waa inuu guriga aado sawaaء kaanad mariida aw saxiixa ama ha xanuunsato ama ha caafimaad qabto ilaa iyadoo inay fasaxdo mooye maalin caawa midani waa xanuunsan tahayo taasaa ii caafimaad qabtoon aadi xaaraan wey taas. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar gambaralka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena. like-na saar waxay noo tahay dhiirigelin oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel. qofku marba haddii uu haweeney ka badan uu qabo 2 3 iyo 4 uu qabo waxaa waajib ku noqonaya si cadaalada inuu wax ugu qaybiyo. qaybinta maxaa loola jeedaa waa annawba waa kalka yani habeenkii haweeney walba habeenkeeda xaqeeda waa inuu guriga aado sawaaء kaanad mariida aw saxiixa ama ha xanuunsato ama ha caafimaad qabto ilaa iyadoo inay fasaxdo mooye maalin caawa midani waa xanuunsan tahayo taasaa ii caafimaad qabtoon aadi xaaraan wey taas. nabigeena salى الlahu عalayه wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi man kaanat lahu imra'ataani qofkii laba haweeney qaba labadaa haweeney mid ka midana xoogaa u janjeersada xaggeeda jaaءa yowma alqiyaamati wa shiquhu maa'ilun maalinta qiyaamaha wuxuu yimaadaa isagoo dhinac u qallooca ayaa qabriga laga soo saara dhinac isagoo u qallooca ayaa qabriga laga soo saaraa hu nabigu salى الlahu عalيه wasalam kayfiyad dulli iyo ihaana ay ku jirto ayuu ilaahay hortiisa la soo hor istaagay. walidaalika waxaa weeye qofku ninku horta ma simi karo yani maxabada qalbiga dabiicada basharka waxaa ka mid a haweenka uu qabo mid uun xoogaa in qalbigu uu jeclaanayo daruuriyaadka bini aadamka dabiicaday ka mid laakiin waxyaalaha daahirka ah ee muuqda inaad u sintahay waajib waa meesha ilaahay jala jalaaluhu uu leeyahay walan tastadiicuu an tacdiluu bayna الnisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayl fatadaruuha kalmucallaqa. ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay walan tastadiicuu an tacdiluu bayna الnisaa inaad dumarka cadaalad u samaysaan awood ma lihidin. midda la leeyahay awood ma lihidin maxaa loola jeedaa almaxabatu fi اlqalbi waa maxabada qalbiga lama xakamayn karo ilaaha xakamayn karo. falaa tamiiluu kula اlmayl fatadaruuha kalmucallaqa. ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay laakiin dhinac ha u wada leexanina oo haweeneydii kale aad ka tagtaan iyadoo mucallaqa ahoo cirka iyo dhulka meesha yani u dhexaysa laga soo laalaadiyo cirkiina aan jirin dhulkiina aan jirin yani laa hiya musawaja walaa ayima. haweeney nin qabana ma aha oo ninkii cadaalad uu u samaynayo haweeney garoob ahoo nin cadaalad u samaynaya raadsanaysana ma aha meel dhexay ka laalaadaa saa ha ka dhiginina dumarkeedu ilaahay jala jalaaluhu.